aad baa Cabdiraxmaan lagu la socdaa oo dad badan oo Soomaaliya oo wax garada inkastoo aad tahay nin dibana oo siyaasadda lagu dhibaateeyay haddana afkaaga iyo qoraalkaaga aad bay dadku u dareynayaan kaliya ma Soomaali dad badan oo ajnabi ah arkayna runtii waxay ku arkaan nin aad isha loogu hayo markay timaado siyaasadda Soomaaliya la qiimeynayo bal Soomaalidu siday uga gudbayso hanaankan adag ee weli dhaqan laga yaabo in askareed yahay dimuqraadiyadda Soomaalida siday ula qabsatay ma istiraha mararka qaar Cabdiraxmaan aad bay dadku kula socdaan aad bay u daneynayaan hadalkaaga laba dhinacba waa isleeyahay aad ula socdaa waxaad ka garan kartaa social media dadka isticmaalaya waa runta marka followerska ama waxaan dadka soo raacaya la yiraahdaa marka maalin walba waa arkaa dad fikrad qalad iga qaban jiray oo way yimaadaan xataa qaarna way qoraan oo hadda fikrad sax ah iga qaba qaar iga soo horjeeda siyaasadda ma ku jirtana qofkaas soo horjeeda qof taageersan labadaba waa leedahay dad badan oo iga soo horjeedana waan arkaa dad badan oo taageersanna waan arkaa dad badan oo hadda fikrada qalad iga qaban jireen ama xog qalad oo macluumaad qalad oo la iga siiyey runtii doodahayga iyo hadal jeedintayda ama qoraaladayda ama kulamada aan samaynayo ay qancinayaan shaladana ugu dambeysay yar 3 sano ka soo horjeeday yimid oo iga cudur daartay inuu qalad iga fahamsanaa ama wax la iga sheegay ay sax ahayn soona qoray marka taas waa arkaa maalin walba naas way ay muhiimad u leedahay inaad bini aadanka la xiriirto anigu ma siyaasiyiinta isqariyo kuma jiro oo afkaartooda qarsada ama waxay aaminsan yihiin aan dadka la wadaagin sababtoo ah haddii aniga aan siyaasadda hadda dawladda ay wax ku wado xaaladda sida ay tahay haddaan ka aamuso macni waa ku qanacsanahay haddaan ku qanacsanahay inaan bedelo inaan doono ma ahaday waa inaan iska dhaafo ayaga aan maadaama aan ku qanacsanayna wax ka fiican haya aan leeyahay waa inaan soo bandhigaa waxaan ku qanacsanayn sababta ugu qanacsanayn iyo waxa alternative-ka oo badiilka aan hayo inaan soo dhigo wax ku qasbanahay marka aniga waxaan aaminsanahay siyaasadda in banaanka la soo dhigo qofka aragtidiisa cadeeyo mowqifkiisa dad badan waxay ugu dhaheen igula kaftaman ajnabiga qof siyaasi Soomaaliya inuu 4 sano oo mowqif joogto ay yeesho arrin sahlan ma aha siyaasadda Soomaaliya marka waa phenomenon cusub ajnabiga qaar ay igula kaftaman runtii arrintaas oo waxay la siyaasiyiin Soomaaliya siyaasadooda way isbedel badan tahay marba wadarka isla bedeshay maslaxada iyo danta markaas taagan marka anaga nafteena waxaan rabnaa in iskuulkaas ama falsafadaas qoftu inuu aragtidiisa cadeeyo mowqifkiisa oo ku sugnaado nafur u sameeyo waxda lagu dhibaateeyo ama lagu dacayday ama wax lagu sameeyo oo ka jixin dadka siyaasadda noocaas oo runta ku dhisan iyo dhabka hadalka in ay la aado sababtoo weyna wareer siyaasaddan 20 sano lagu jiray oo maaragtay oo la garanaynin meesha u socotay meesha ka socoto hadda madax badan tartamaysa markay la sharaxayo kuleyba waxaad ka mid tahay ama waxaad dhigi kartaa inaad tahay ninka kaliya oo siyaasadda loo xiray oo loo dhibaateeyay waqtiga dambe dadkaas marka kala duwan ee Soomaalida ah ee la socda wararkaaga iyo akhbaartaada maadaama siyaasad ahaan dawladdii ay ka hortimid oo ay ku xirtay oo ay ku dhibaateysay oo aad tirsanaysan dhibaato ku geysatay 4 sano seed u joogtaysay inaad mucaarad ahaato ilaa doorasho laga gaaro oo aad waliba ku sugnaato tiraahdo mar walba waa in dimuqraadiyadda la ilaaliyo waa taageerada dadka ugu muhiimsan shacabka taageeradiisa ugu muhiimsan hadday tahay dhinac macnawi hadday tahay dhinac maadi hadday tahay dhinac maaragtay intaba energy iyo waqti nasiyaan qaasta dadka dhalinyarada ah runtii dhiirigelintaas iyo garab istaagaas iyo hoylintaas anaga meesha inta xoogeeda nagu haysay iyo waxaan ku hadlayno aaminsanahay wax naga daacadna naga dhabna naga ah dalkii dadka in faa'iido ugu jirta ah marka qofka bini aadanka markuu aaminsan yahay waxa uu sameeynaa inay yihiin wax dalkan u wanaagsan asagana u wanaagsan diinta iyo ilaahaysana oo raalli oo ka yahay waa wax oo energy shidaal ku siinayo inaad mowqifka ku taagantahay oo xaq yahay oo wixina ay daacad iyo ikhlaas ka yihiin intaba haddiiba dad systemkii dawladda gacanta u galay kugu dhibaateeyeen haddana aad og tahay in isla dadkii ay weli systemkii gacanta ku hayaan سيد وفيلن كرتها إن الدورشة وقايب قش حر حلالة. والله تواي وهذا بدنتها لكن أنا وحصلنا هاي دورشة دولة كليس كمله. تطبقني كل حيث الصومالي ستيك هولدرسا. مسامير سياسية ديتها عن دولة قبل ديتها ديتها حزبية كله. ديتها هاي معركتي باش عالم كا. wax marka Cabdiraxmaan iyo dawladda kaliya u dhaxeeya ma aha waa wax maaragtay dad badan ay ku leeyihiin stake oo ka wada dhaxaysa marka dadkaas anigu aan kamid ahay
marka waxaan rajaynayaa dee in doorashadaas mid lagu wada qanacsan yahay ay ahaato oo dadka qaybgelaya doorashada sideedaba ahmiyaddeeda waxaa dadka qaybgelaya inay ku qanacsan yihiin si ay u ogolaadaan natiijada laakiin haddayse dadka qaybgelaya ku qanacsanayn kaliya unbaa baratamaya kaliya haddaa baratantana dee natiijadii lama ogola haddaan la ogolayna doorashooyinka waxay ka dhashaanba violencega ama dhibaatada ay ka timaado dad badanaa ku dooda oo taariikhda siyaasada soomaalida qora madaxweyne cabdirashiid waxaa loo dilay waxay ahayd natiijada ka dhalatay doorashadii ugu dambeysay ee 67 marka inqilaabkiina halkaas uu ka yimid dalo badan oo dee colaadaha post conflict society la yidhahdane hadday doorashada in la dhaco ama la qaldo ama la xoogo la isku dayo inta badan colaadihii iyo dhibaatadii ay soo celisaa adiga rajada aad ka qabto doorasho xalaala inay dhacdo oo aan qalqal siyaasadeed waddanka imaanin oo aan la isku dilin siyaasadda maxaad aaminsantahay maxaad isleedahay wala waa in rajadaas qabaaba saas inaan qabo waayo rajo waxa mar deeyihiin waa inaad saas qabaa laakiin haddee nidaamka hadda jira soo wax u wado si ma aha oo fiican laakiin annaga dee shaqadeenna waxay tahay inaan check and balance inaan dheelitirno asaga nidaamka soo wax u rabo haddii tahay si qalada oo waddadii saxda aan ahayn aan ka celinno oo la isku kaashado oo waddada saxdaa lagu soo celiyo marka gaarigan hadda darawalka wada hadduu waddada ka leexiyo oo ku qasbanna intaanaan saaran saan u wada badbaadno inaan idhaahno meesha ku socoto waddo qalad ah marka laakiin haddaan ka aamusno dhinaa darawalka loo dhaafo oo natiijadan aan ognahay marka waa dhibaato marka saas daraaddeed annaga waxaan rabnaa in doorasho laisku raacsan yahay ay dhacdo ujeedkeena taas waaye بريشرك iyo cadaadiska intaan saari karnana waan saaraynaa ilaa meesha ugu dambayso macnihii in aan laga yeelin say rabaan dadkan inay ka yeelaan ayaga waa la ogolyahay inay tartamaan xaq u leeyihiin oo muwaadiniin laakiin inay dhahaan macnihii annaga sidaan rabna keliya loo tartamo oo rule of the game-ka annaga keliya kaan dejinno keliya lagu socdo waa midaan aan laga yeelin wacyiga bulsho marka ee ah inay ilaashadaan waqtigii la soo maray taariikhdii la soo maray in xilka siyaasadeed la isugu wareejiyo si nabada oo villa Soomaaliya uusan joogin madaxweyne haba yaraatee si xaraana ku yimid wacyiga bulshada iyo siyaasiyiinta oo ah in arrintaas si guud loo wada ilaashado waxa la isku dilay ma ahayn kursiga la Hargeysa ama Garowe ma ahayn waxa wadankan loo burburiyo la isku dilay waxay ahayd villa Soomaaliya wacyiga intuu leeyahay bay kula tahay bulshada inay arrinta qayim u tahay ilaashadaan in villa Soomaaliya madaxweynaha fariisanayo oo ahaado mar walba mid sharci ku yimid هذا من 20 سنة وجود ذلك هذا اللي سكوا ريجينا يا سنة ومر تذكر أي لقب سدان حسلوني سياسيا إني أساس كجرت الأوجي هاي أنا وحنا يستعدونها إني أرنتس أوجيهين قاصدا دقيقه هو ذن مع نخبة أم إليت كلير هذا إني لص عضام مهمة أرنتس إلى هاي عدينا حسلوني سجرينا أنت كله إني سنجرينين وضدك هذا أما جناح سجى أما رما كله بالشدة هاي إني سياسة إسالت هاي وسياسة ولي بحسلوني ده ay saltahay 4 sano in doorasho dhacdo waa in fursad la siiyo oo maaragtay dadka markaas jooga hadii ay wanaag keeneen loo kordhiyo la yiraahdo wanaag sii wada hadii wanaag keenin ay caqabad noqdeen oo horay wax wadi waayeen la yiraahdo waa la ka bedelaya dadka la fursad la siinaya laakiin anigu umba iska joogaya hadda inay yeelayaan dadka Soomaalida ee gudaha ku jira ilaa ma aha ku dibad joogan 3 milyan ku dhawaada badii waxaan western democracy leeyahay ku hoos nool oo wadamadan dimuqraadiga oo taladii xukunka la isku wareejiyo si nabad ay ku hoos nool yihiin marka accesskii iyo meediyaha iyo qaastan kii warbaahinta baraha bulshada iyo wax walba ay xogtiina way haystaan marka dadka gudaha joogana waa saas oo kale age of information lagu jira ila macluumaadka ay mutaax yihiin meel walba ay yeelaan marka ila masalan gudaha iyo dibadba Soomaali hadda in xoog lagu haysan karo ama nidaam dictator oo kale talisa lagu soo celi karo arrin sahlan ana agteyda runtii kama aha waxaan diidayo madaxda adduunyada soo martay saameynta kugu leh waxaad sheegtay inuu kamid ahaa Abraham Lincoln oo Mareykanka siyaasadeedii bedelay Ibrahim wuxuu caan ku ahaa waa taqaanaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur hadduu madaxweyne noqdo ma laga yaabaa Farmaajo iyo Xasan Cali Khayre iyo rag badan oo ka soo horjeeday inuu guriisa ku soo daro والله هذا قولك كيجا هذا نمكاس إني هذا مدح ويني نقدين وصعدان مو ملاينايو لكن واحد يسكرها وحيتها هاي إن حيلها ولينكن كوفينا كميدة مارينتا دتكلا ودون ولي بالرايف لسه اسكسور جيدة إن سياسة قوة هايسو قوة كاسور جيدة أيضا اسكسور جيدة إن هذا ماريسو عنكو أها واتلو بيتيم أبرايف بوقت لقى قوري هذا إرتان وهذا معنا بدرنتي marka waa isleeyahay xalka Soomaaliya inuu ku jiro
in dadka isdiidan aragtida isdiidan in la isku hayo la isna qanciyo dalkana markaas isku meel ama isku dhinac ayadoo la kala duwan yahay inta la isku raacsan yahayna lagu wada fuliyo inta lagu kala duwan yahayna la isku ixtiraamo la isku qadariyo warbaahinayga manele hanolaato horseeda oo la holi karin hanolaato Soomaalida u hiilse